taswata marka ilaahay baan u mahadnaqayaa kolka hore mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa arinta inanta soo deynteeda min maalintii la xiray ilaa maanta ciddii ka qayb qaadatay soo deynteeda xorriyadeeda inay dib u hesho madax iyo mijaba meel uu joogaba waa u mahad celinayaa madax iyo mijaba dadweynaha ciddii ka qayb qaadatay mahad guud iyo mid gaaraba waa u celinayaa qorane maxkamadda gobolka Muqdisho 15 bishii saddexaad ay ku xukuntay 3 sanadood xariiq ciqaabeed ah codsi ka yimideen ehelada Abwaan Naciima iyo Naciima laftigeegaba oo loo gudbiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa runtii madaxweynuhu ka jawaabay codsigii ehelada Abwaan Naciima waxaana maanta Naciima soo baxay go'aankii xorriyadeeda lagu soo calinayay Naciima maanta xabsiga Gabiley laga soo daayay runtii waxaana aad uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo taliska xabsiga Gabiley iyo runtii taliska ciidanka asluubta ururada xuquuqul insaanka qaranadii kala difaacayay warbaahinta madaxa bannaan iyo runtii cid kastoo af iyo adinba kaga qayb qaadatay sidii ay Abwaan Naciima Axmed Ibraahim u heli lahayd xorriyadeeda